dadka xeebta jooga ayaa waxay arkeen badii oo gadaal u laabanaysa. Calaamadan ayaa waxay ahayd digniin cad oo tusinaysa inuu tsunami soo socdo. Arrintan dadka aad ayay ula yaabeen. Hirkii weynaa oo tsunamiga ah ayaa waxa uu watay 10,000 oo zombie ah. Su'aasha meesha taala ayaa waxa ay tahay zombiga halka uu ka imaaday. Wax waliba waxa ay ka bilaabeen jasiiradan yar oo badda gudaheeda ku dhex taala. Jasiiradii ayaa waxa ku dhex jirtay ceeryaamo cad oo sumaysan. Qof waliba ceeryaantaas taabatan waxa isku bedelayaa zombie. Dhakhaatiirtii ayaa waxa ay ka soo carareen shaybaarka si uusan jirkooda sunta u gaarin. Qof waliba waxa isku dayay inuu helicopter-tan qaato si ay naftooda u badbaadiyaan. Madax shaybaarka ayaa waxa uu ku guuleystay inuu sameeyo ceeryaamo sun ah. Arrintaasna waa ay u hirgashay. Ceeryaamadiina waxa uu ku tijaabiyay shaqaalihiisa. Shaqaalihiina kama aysan daba harin. Qof waliba waxa uu meel ka qabsaday helicopter-ta uu watay. Shaqaalihii qaar kamid ah ayaa waxa ay dusha ka qabsadeen helicopter-ta. Shaqaalihii ayaa helicopter-ta mid ugu dhacay. Ninkii madaxda ahaa ayaa waxa uu bilaabay shaqaalihiisa inuu ku shubo sun virus ah. Inkastoo shaqaalihiisa ay bareen laakiin waxa uu ku madax adeegay inuu sunta viruska ahayd ku shubo. Shaqaalihii ayaa sunta jirkooda aad uga faaftay. Dhammaantoodana sidaas ay helicopter-ta ugu dhaceen. Ninkii madaxda ahaa ayaa kaliya jasiirada sidaas uga badbaaday. Zombiyaalkii ayaa dhammaantooda gaajo daran aad u qabatay waxa ayna bilaabeen inay dibadda u soo baxaan. Dad kalluumaysato ayaa waxa soo hareerayay zombiyaasha. Kalluumaysatada ayaa waxa ay bilowday inay ka baxsato zombiyaasha. Mar labaad ayaa waxa dib u soo laabtay tsunamiga. Kalluumaysatadii ayaa waxa isku dayeen inay mar kale naftooda badbaadiyaan laakiin midaas waa ay ku guuldareysteen oo naftooda ay meesha ku waayeen. Dhanka kale tsunamiga ayaa waxa uu soo dhawaaday xeebta. Qof waliba waxa isku dayay inuu naftiisa badbaadiyo. Ugu dambeyn heerkii weynaa waa uu joogsaday. Zombiyaashana gaajo darteed ay biyaha ugu dhinteen.